adigu waxaa tahay qoftiisa aan ogayn balse aniga tayda waan ogahay haddii aan kula noqday shay marna la isticmaalayo marna meel la iskaga xooraayo maad runtii indhaha iga saartid kuma rabee iska kay dhaaf maad idhahdi maxaad luuqluuq iigu soo maraysaa aniga ayaa ku qaldanaa inaan adiga ku jeclaado waayo wax eedaa aan ku saaraayo haba yaraateen ma jirto farxadda ayaa iga tanbadisay waxaan iska dhaadhiciyey inaan ku helaayo taasina waan ku qaldanaa aniga waxaa ii darnaa inaan adiga qalad kaa galo laakiin adiga ayaa qalad iga gashay cafis baad iga tahay kuma haysto dhibaatadan adiga ayaa sabab u ah nafkaasii jeedda ayaa soo jeedisay kadibna meel cidlaa ayaad uga dhaqaaqday doqonka sidiisaba usha haddii agtiisa lagu dhufto waxba kuma fahmo balse markii korkiisa lagu dhufto ayuu wax fahmaa laakiin aniga doqon kuguma naqanayo waan kaa harayaa haddii aad adiga ku faraxsan tahay sidaas maanta laga bilaabo waxaan isku dayayaa inaan ku iloobo ama aan kaa maarmo inkastay dhib igu tahay waayo haddii aad igu qanacsanayn waxay ahayd inaad runtii ii sheegto adduunyadu sideedubu waa wareegto waxaad aniga igu samaysay waxaa laga yaabaa berri in qof kale uu kugu sameeyo haddii aan kugu waalnaan jiray wixii maanta ka dambeeyo waad iga nasanaysaa balse adiga waxaan kuu rajaynayaa intaad dunida ku nooshahay inaad farxad ku waarto jacaylku quwad iyo qasab ma ahan ee waa quluubtuu qofka uu yeesho adigana qiiq iyo qayle iyo buuq ha isku qarinine waxaa tahay middii lii qoray naftu qabatee qunyar caga dhigo فاطمة كلانتي جعيلة بقرشيسي دبقانون وقيمين قنير هايسكو ديبني ديرة كتادوخا الله ما كهوشي حقيا سروحك قدر وهالكيسي ياكو قادن محبضو ياكو قادن محبضو ياكو قادن